ninkan ayaa ka sheekaynaya sheeko hadda ka hor soo martay oo degan dalka Imaaraadka Carabta waxa uu leeyahay hadda ka hor buu yiri iyadoo waqti hameen ay tahay oo aynu joogno aniga iyo ehelkii waa waalidkii iyo walaalihii magaalo ka mid ah magaalooyinka ku yaala dalkaas ayaa waxa nagu da'ay hameenkaas roob aad iyo aad u ba'an oo birid ama wirid midad u taqaanaanba wata wuxuu yiri anagoo guriga gudihiisa isaga jirna ayaa wiridkii dhacaysay nagu soo dhacday markaasaan aniga iyo ehelkaygii koox ka mid ah daadanay way ka kaceen buu yiri badankood oo walaalhay mid walbaba wuu dhacay waa suuxay xoogayar kadibna waan soo kacay mid baa saralay mid baa meel bay xanuunaysa ka sheegtay aniga maahane saan u dhacay buu yiri ma soo kicin waa la ifukrobay reerkii oo dhan ba idul yimaaday waxaan soo miirsaday buu yiri anigoo ay reerkii ifukrobayaan waan soo miirsaday anaa soo miirsaday maskaxdaydii baa soo noqotay laakiin waxa aan dareemay buu yiri inaanan hadli karin iqaaqi karin indhaha kala furi karin aan maqlayo kaliya waxay leeyihiin reerkii oo wada murugaysan oo ku haya warhebelow kac oo qof walbaba dhinaciga fadhiyo ayuu maskaxdaydii unbaa joogta waxaa taa ka darnayd buu yiri in ay reerkii markiiba farmasi noo dhowaa ayay uga yeereen ku dhakhtaroo fadhiisan jiray wuxuu yidhaahday wuxuu soo qaatay bahalladii lagu dhagaysan jiro qofka feerihiisa iyo waa isaarsaaray waa itaabtaabtay inta xidid halbowle ah oo qofka laga eegi karay ayuu iga eegay mise adaaba sheegayaba wax dhaqaaqaya iyo wax calaamadoo caddaynaysa in aan noolahay waa la waayey waan maqlayaa buu yiri markii uu dhakhtarku itaataabanayo iyo waxa la leeyahay sida loo sugayo iyo aabbahayo ku haya maxaad leedahay maxaa ka khaldan weli waan maqlayaa buu yiri markii uu dhakhtarkii aabbaha inta eegay wuu leeyahay allah kaa samarsiiyey wiilkaaga waa meyd markaasaa wuxuu yiri anoo maqla reerahayagii walaalahay hooyaday aabbahay kulli baroor laysku darsaday xaafadihii oo dhan baa lays aabbahayo isqaban waayey oo igu dul barooranaya ayaa janaasadii la igu tukaday waa la ii duceeyey alla u naxariiso annaga waa naga soo dhammaaday waka waa lay qaaday buu yiri waan kafnanahay waa xiranahay waa lay qaaday iilkii baa lay dhigay qaylada marka iga yeeraysay buu yiri hadday xitaa xayawaanada khatarta ahi maqlaan runtii waxaa aaminsanaya inay iga carari lahaayeen qaylo ka soo go'aysa beerka iyo xiidmaha iyo malowidka baa tayanaya unan bini'aadan u dulqaadan karin baqlinta iyo naxdinta iyo oohinta igu jibdhana allaa loo bandhigay badoo nool lagu aaso oo ay lagaa waraayay weliba wuxuu yiri iilkii markay dhigeen ay igu bilaabeen inay igu shamiteeyaan ay dhagaxda igu kuraan ayuunbaa alle ii soo celiyey dhaqaaqaygii oo aan isha ka gelibsiiyey markaasaan dhaqdhaqaaqay wiiliyon saa isu gelgelay saa hal mar kooxdii aasaysay ashahaada ku dhufteen iyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun cadaabulqabrigiibaa mar hore lagu bilaabay qallow adaan kaa magan galnay loo jibiro odaygii intaa yidhi caqligiisu beeshuu ka keenay warkaas iyo inuu is oran waayey ma laga yaabaa inuu inanku nool yahay inaan wuxuu yiri iswada dhaqaajiya maahaanoo wada socday jirkayga hal meel ma dhaqaajin karo maxaa yeele waanba kafnanahayba waan tigtiganahay wuxuu yiri markuu intaa yiri baa hal mar ashahaado lagu wada dhuftay oo aabbahay naxdin bartaan la istaagay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun war ducada war korukaada aabbahay baa halkan war bisinka ila qabta hal mar baa wuxuu yiri waxaan dareemay carabkayga dhaqaaqaysa iyo inaan hadli karo markaasaa waxaa iga soo baxday qayladii igu dheganayd abrigii baan ku dhaqaaqi gaaray qayladii aan qayliyey dadkii oo markiiba dee maskaxdooda ay gashay inankii alaab baa lagu bilaabay oo bisinka iyo shahaadada iyo ducada hayey markii aan hal mar tayliyey waxay noqdeen qayb daadatay iyo qayb aanan dib soo eegin aabbahaygii hadda ii baruuranayay dabayshuu raacay hadduunan ka dheerayn lama arag odayga keliya oo lixdan jirkaayoo sii gadoomaya oo sii kacaya dacaskiisina ka cararay lama xisaabin karo anigii wuxuu yiri aan qaylihii ima dhaqaaqi karo ilaan waan kafnanahay dadkiina wakuwa iga yaacay ibixii baa ka dhacday wax kaloon samayn karay leen ma jidhe qayladaydii baan sii waday iyo war aabbow waa noolahay war ii soo noqda war kaalaya maba ahaa buu yiri kuwii haddadaa ii barooranayay oo jeclaan lahaa inaan soo noolaado oo aan sii noolaado oo ii ducaynayay maba ahaba haddaad dhimatid bas weeye mar haddaad dhimatid waa lagaa samray waa baxar marka haddaad isku soo noolaatid dad baa waxaa laga yaabaa inaad weligaa tabti ka ahaatid oo ay kaa baqaanba wuxuu yiri markay intaasoo kilomitir jareen ummaddii iyo aasi lahayd ayagoo cararaya lugahooda ku ordaya ayaa xoogaa ay istaageen oo aqligii kusoo noqdeen dheheen war inanka ma maqlayseen waa noolahay buu lahaaye hahay ambe waan moodayeen wuu lahaa koox baa soo kala firaysay buu yiri kooxna waa ka dhacatay naftayda waa jecelahay baa ka dhacday bartii baa la yimi buu yidhaahday oo kafantii baa layga dariiqayoo waa lay soo saaray anoo naftaagan eelkay wuxuu yiri qayb baa weli iga farfogaanayso halkaa iga eegaysa halkaasay iga soo kooraansanayaan oo waxay isleeyihiin amura wuxa bini'aadam ahay bilaayaa soo gashay mala sheekadii baan uga dhacay oo waxaan u sheegay in aan maanta dhan ka warhayey shaqadii ay hayeen oo
aan intii oo idil aan maqlayay wuxuu leeyahay ilaahay ayaan u mahad celiyey oo fursadda i siiyey oo isoo dhadhansiiyey waxa laygu talagalay in aan dhadhamiyo maalinkii aan adduunka kasii baxayo bas fursadna aanan helin mu'min baan noqday buu yidhaahday aanan masjidka ka bixin oo qur-aankiisa iyo kitaabkiisa iyo salaadiisa alla ku mashquuliyey iyo wixii alla ii dhaweynaya nimca ilaahay baanu ku suganahay intaas ayuu inankaasi kusoo koobaya sheekadiisa alla nagama dhigo kuwii markii ay naftu kasii baxayso shalayta ay uga baxdo iyo allow yaa maan